ciidamada xoogga Puntland ee BSF ayaa deeq lacageed ku wareejiyay isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso. warbixintan Axmed Nuune ayaa Boosaaso inoogu diyaariyay. xilli isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso oo ka socota qayb dhisme cusub oo loogu talagalay gargaarka degdega ayaa waxaa ku yimid gaabis dhinaca dhaqaalaha taasi oo sababtay in gabi ahaanba uu istaago. waxaana maamulka isbitaalka uu bilaabay in uu caawimaad weydiiyo dadka isleeyahay oo ay ka caawin karaan. waxaana taasi ka soo jawaabay ciidamada BSF-ta oo ah ciidamo inta badan ka qayb qaata horumarka dalka. Gijaale Cabdibaydhabo ka mid ah saraakiisha ciidamada BSF ayaa goobta ay ku wareejinayeen lacag tan ka hadlay isagoo sharaxay sida uu warkan ku soo gaaray iyo sida ay uga jawaabeen. waxaan maanta la kulmay xog naga soo gaaray isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso in qayb emergency oo la dhisayo ay ka dhiman tahay lacag dayactir oo socday isbeddel socday. xogtaas oo naga soo gaaray agaasimaha guud ee isbitaalka markii ay timi xogtaas soo gaaray agaasimaha guud ee BSF iyo ciidankiisa waxaanu go'aan ku gaaray in aan mushaarkaya lacag iska jaro si loo dhiso loona dhammaystiro isbitaalka qabyada yar waxaa qabya ka ah qaybta emergency-ga oo ummadda Soomaaliyeed loogu shaqeynayo. ciidanka BSF-na had iyo jeer waxay u taagan yihiin oo u helayeen sidii ay dadkooda shacabka ah ama Puntland ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaato ugu qaban lahaayeen ama isugu keeni lahaayeen. lacagtaas oo dhan $8,000 waxaan rabnaa in aan ku wareejino agaasimaha guud ee isbitaalka Abdullaahi Saciid Muuse. waxaanu jecelnahay had iyo jeer wixii aanu qaban karo oo dalka aanu qaban karo inaanu qabanno oo aanan ka caajisin kana daalin. Abdullaahi Saciid Muuse oo ah madaxa guud ee isbitaalkan ayaa wuxuu ka mahad celiyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen ciidamada BSF isagoo sheegay inuu aad uga mahad celinayo. waxaana xusay inay jiraan dad badan oo lacag u ballan qaaday saatay ilaa iminka aan soo gaarsiin. وين نقيا مدحدا ساكيشة iyo askarta ciidamada BSF oo nagala qayb qaatay dadaalkii aan ugu jiray wanaajinta iyo ballaarinta isbitaalka. dad badan baa jira oo naga ballan qaaday intaan meesha bilaabin inay wax naga taraanin. waxaanu yeelay markaa balanagu intii taalkayagu ahaa ayaanu yeelay waanu taagnay waxbaanu sugaynay wax aanu ka helay dadkii ballanka naga qaadayna haba yaraatee ma jiro. nasiib wanaag waxaan noo yimi ciidanka BSF dad ka socda oo naga ballan qaaday in ay gacan ka geystaaneen hawsha aan ugu jirto. mar labaadna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. ciidamada BSF ayaa waxa ay yihiin kuwa inta badan ka qayb qaata horumarka dalka. waxaan ugu horeeyay dhirbeeris ay ka sameeyeen qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida Boosaaso, Qarre iyo waliba Garowe iyagoona taas ugu talagalay inay kor u qaadaan bilicda deegaanada Puntland. Axmed Maxamuud Axmed, warbaahinta SBC, Boosaaso.